بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعنا ونكسن أصحاب تقاليقة كسو دوادا يوتيوب كيغا شكري لابا كتوس مركلا فيديو عصب أيان كل مينا جنالك هداكو عصب تهاي فيديانو ياكيكو هوريه وحكا عصنا إنا جنالك سبسكرايب إيسارتو فيديها إيلاي كريسو شير كريسو أصحاب تهادا ألو ذاكتو وانكم هسان تهاي داوشادا فيديو ياشيدا maanta waxaa idin wadaa sheeko cusub intaana sheekadeena u guda gelin waxaa marka hore igula salisaan sida caadada noo ahba rasuulka sallallahu calayhi wasallam allahumma salli wasallim calaa nabiyina maxamed intaas kadibna sheekadeena maantay hanoo bilaabato sheekadeena maantay waxay ka dhacday wadanka ciraaq ayay ka dhacday 2018 ayay dhacday waxaa jiray family ka koobnaa 5 wiil iyo gabar yar iyo hooyada iyo aabihii oo halkaasi deganaa familigaas waxay ku noolaayeen nolol aad iskaga wanaagsan aabaha reerka waa uu shaqayn jiray wuxuuna ka shaqayn jiray meelo dikoorada guryaha iyo waxyaabo lagu qurxiyo laga sameeyo ayuu ka shaqayn jiray wiilasha waaweyn waxay ahaayeen wiilal waxay la shaqayn jireen bardu aabahood wiilka saddexda wiila waaweyn wiilka afraad ay maanta sheekadeena ku socotaa oo la dhaho Cabdiqaadir oo ah familigaas cunugooda afraad Cabdiqaadir saddexda ka waaweyn waxay la shaqayn jireen aabahood la shaqayn jireen laba ka yaryar gabar yar oo 10 jir iyo wiil ka yara waxayna dhigan jireen iskuulaadka kuwaas waxbarashada way dhameeyeen marka aabahood la shaqayn jireen Cabdiqaadir wiilka la dhaho ay maanta sheekadeena ku socoto wuxuu ahaa uu diiday inuu waxbarto waxbarashadu ka caagay sidoo kale wuxuu ahaa qof saaxiib mashaakil ah dadka mashaakilka ah wax ma baranayo aabihi inuu la shaqeystana wuu diiday sidoo kale tana waa qof hadoo banaankaas istaago dood la imaanayso foodo loo kicina maanta marka dacwo loo taagan yahay maanta waa laga soo dacwoona maanta waa la imaana mashaakil bu socdo ahaa aabihi markasta nafta ila la wuu yaabay wuxuu dhahay warkaal aniga ila shaqeyso ma shaqo marabo warkaal waxbarashada dhameyso ma waxbarashada marabo maalmaha kamid ah wuxuu galay khalad aad u weyn oo dambi ah dambiga aabihiis marka khalaas uu ka daalay qof laga ticbay oo laga dhahay camal noqday aabihi intuu soo qabtay asaga iyo wiilashiisii bay waxay ka tumeen bag iyo xabad ay u tumeen ilaa heer inuu dhintayba u qarka u koray bay markuu arkeen inuu dhiman rabo bay iska sii daayeen dhimashay ku daayeen markay saa u daayeen wuu iska soo kacay asagii meelihiisu xoogaa iska xoqday وهذا قف زائد لو جيست معنا ماليز بس قاعد حقتي وبحي ما عندهم بوحدة خلاص أنا شقرات سدوا ما أنتي أصلا نفس دي سوس كنا هاي وبحي ماكو بحي وعين ميمان وما هبيك كلام ميمان ماكو سوه يندي اللي بهبيك سوه يندي قال وعلم مركز ودنسيا ما قبنا مركز دم بقبت أبيس وحده محاكو داري محاكو داري محايده ساسو أذيقا maadnaan incin oo imaadnaan karaasan oo adinkan imaadnaan nicin waa idin ka soo taguudha markii la dilay hooyadiis waxay ku dhahday aniga kuma dhalin hana i sheeganin ama isyeedad aabaa saas oo kale tuu dhaay because khaladka uu gala dartiis marka wuxuu dhahay soo imaadnaan nicin maadaama ay nacdeen aniga khalaas waa dareysana oo maxay garabtiin markaas waxay dhahday aabiis wuxuu dhahay war maqaf cunugu asaga dhalay nacaya jiro bis kaliya inaan ku bedelno oo saan wax ka bedelid la rabnaayo imaadu dhama imaanayo aabiis wuxuu dhahay hadaada imaanin uu dhahay wallahi hadaada imaanin uu dhahay warqadan waxaan ka soo qaadanahay uu dhahay sheekha qabiilada waxa la qabanayga ninka gudoomiyaha qabiilkaas ah ninkaas waxaan ka soo qaadanahay uu dhahay warqad waxaan u sheegaa uu dhahay oo qoraa uu dhahay ina aniga bari adiga ka oo aanan ku dhalin dhaxalkayga aadan lahayn oo aadan qaburayga aadan waxba ka lahayn ana is sheeganin baan ku sheegay uu dhahay hadaadan caawa imaanin caawa ninkaas waa galab hadaadan wuxuu imaanin anigu waa ka dhabayna hawdha go'aankaasna waa qaatay ogaa uu dhahay wiilkii wuu yaab wuxuu isdhaa iska tag waa uu soo orday wuu imaaday bardu markuu imaaday waa la jajabiyay markii la jajabiyay oo la tumay adaga wuxuu dhahay khalaas cunugu cuqdad u qaaday marka hooyadii waxay dhahday kuma dhalin adaga wuxuu dhahay kuma dhalin waa la dilooya 40 saac bis wuxuu dhahay marka maalinta dambe wuxuu dhahay ani shaqo raadsanahay maxaa ka shaqeynaya la shaqo raadsanahay waa u baxay shaqo raadsaday si adinkan dhanba aan niga fogaado waxaan ku qasban inaan shaqo helo shaqo raadsaday wuxuu helay shirkad kamid ah shirkadihii markaas magaalada ka shaqeynayay baa waxay xisisay askarinimo waardiye shaqadii waardiyuhu helay shaqadii waardiyaha markuu helay shaqadiisu ka shaqeystay odaguna uu sheegay khalaas madax le meel igala galay ka taagneed odaga bis shaqadii waardiyaha markuu shaqeeyay shirkadina waxay siisay qoriga markii la siiyay waardiyihiisa uu galay wuxuu go'aan ku gaaray familigiisa oo dhan inuu cirib tiro oo uu dhameeyo maadaama ayaga adduunka u necab yihiin ay karaahsadeen
waa uu soo baxay laakiin wuxuu rabay si aan loo fahmin inuu asaga dilo faamiligiisa in micnaha si aan looga shakin uu meelo kale u saarayo oo ku saantirto saasuu rabay go-aankaasuu qaatay waa uu soo baxay wuxuu imaaday wiil ka mida wiilasha shirkadda kala shaqeynaya wuxuu dhahay niyo waxaa rabaa warqadan waxa iigu qortaa afarta ma aqaani uu dhahay waan cunigan asna waxna ma qoro waxna ma aqriyo because wuu diiday waxbarashadii maahino waa u soo baxay wuxuu dhahay waxaan rabaa uu dhahay inaa barto qoraalka farta soo waxaan rabaa uu dhahay inaa ii qortid warqadan iigu qor waxa iigu qortaa uu dhahay aniga ayaa dilay faamiliga Cabdiraxmaan walaalkiisa weyn la dhahay magaciisa faamiliga Cabdiraxmaan aniga ayaa dilay because asaga wuxuu dilay aniga faamiligayga waa ka argoosanaa si wuxuu rabaa micnaha booliska uu wareeriyo oo loogu fahmo sheeko argoosi camal Cabdiraxmaan faamili soo dilay kadib faamiligiisina ninkii uu faamiligiisa soo dilay baa dilay saas camal uu rabaa asaga in loo fahmo bis warqad wiilku wuxuu dhahay oo hadaad farta baranaysid maxaa dhacay uu dhahay maxay waxa ku baranaysid farta sheekadan maxay tahay wuxuu dhahay sheekadan iska dhaaf saas rabaaye aad saas ma ii qori kartaa wuxuu dhahay waa kuu qoraa laakiin wax kale ku baran kartaa war ma ii qoro dhahay ama iska dhaafniyo anaa raba saasaan rabaa ii qoray waa wiilku u qoray sheekada fartii intii uu dhahay ii qoro u qoray laakiin isbeesi dheer u dhex mariyay wuxuu isla ama isticmaala ujeedkiisu maxay tahay saas camal u isla ka shaqsana المهم waxaa dhacday marka wiilka fartii uu qoray 3 bari ku qaadatay inuu jumladaas qoro oo uu koobiyeeyo wuu qoray warqadu ku qoray go'aan uu qaatay maalintii uu rabay inuu fuliyo sheekadu ala soo gaaray wuu soo baxay subaxdii aalasaydii adiga xilliga salaada fajrka la aadaamin ka hor aabiisa marka waxay caadadiisa inta aan la adimin salaada fajrka inuu baxo masaajidka tago markuu salaada meesh iskaga sii dukado iskaga sii sunneysto oo marka salaada fajrka maxaa la adimo oo salaada iska soo dugto cabaar uu soo joogo markaas kadib uu kasoo bixi jiray guriga imaan jiray wuu ogaa marka xilliga aabiis baxo xilligii uu islaha aabaha wuu baxay buu guriga imaaday guriga markuu imaaday waa uu soo galay albaabkii aabiis uu maqan yahay wuu ogyahay ma xilligu aabiis baxay albaabku soo galay waa uu soo socday qolka saalada marka fadhiga meesha la fariisto baa waxaa jiifay hooyadiis iyo walaashiis iyo Cabdiraxmaankii weynaa jiifeen waa uu kor imaaday Cabdiraxmaan madaxa baag 5 xabadood uga siiyay habartii waxay ku kacday sharqantii markay soo kacda ayadina wuu ku xujiyay cunugtii yarta ahayd oo 10 jirka ahayd maray soo qaatay madaxa iska saartay way cabsatay way dhakatay iyadoo sida isku dhajinayso ayadana 5 ku tiriyay dadkii guriga jiifeen wiilashii kale oo guriga jiifeen baa waxay maqleen 3dii kale gudaha ku jirto 3 wiil oo kale gudaha jirta shirqantay maqleen way soo ordeen way soo istaageen markay banaanka imaadeen waxay arkeen ninkan oo fadhigi taagan oo meedad meesha yeelan hooyadiis iyo dhiig isdhex galay ninkan qori haysto way isku naxeen way soo carreen guriga gadaal u soo galeen waa uu ka soo daba galay waa uu ku tiriyay labadii asaga ka waaweyneed kii hagoob soo dilaba midkii ka yaraa iyo midkii kale waa uu ku tiriyay midkii saddexaad wajigu maro saarta asna wuxuu iska dhigay inuu hurdaayo loo tagay 5 oo ku tiriyay waa uu soo baxay albaabka laabkiisu soo istaagay qorigii uu qarsada markii aabihiisu sugaa marka intii kala dhan way dhinteen aabihiisu sugaa aabihiisa imaaday aabihiisu go'aas albaabka u soo galay wuxuu arkay kiyo wajigiisu qaab tiran yahay madluunsan oo meesha fadhiya aabihii markuu soo galay wuu yaqaanaaba ninka inuu yahay nin sharlow ah inuu uu soo galay wuxuu yiraahday maxaa soo doontan maxay tahay meesha fadhisaa qof yow saano wuu u factriyay wuu caayay oday markuu caayay maxaa meesha ka qabanaysaa orada hooyada igu waxuudha wuu baxay markuu baxay buu wuxuu imaaday oday qolka fadhigu soo aaday fadhiga markuu basaas odayga u soo galay asna qorigiisu soo qaatay waa uu soo daba galay waa uu ku tiriyay rasaas ku tiriyay odagiina faamiligii ka koobnaa 5 cunug iyo hooyadii iyo aabihii buu meeshaas isla dhigay dhiig wixiisu iska tiray fag waa baxay shaqadiisii aad intaan bal la fahmay ma lagu soo bixin shaqadiisu tagay meel maba aadmin ninkan uu shaqeynaya maalintii koowaad waxba lama arkin maalintii labaad baa waxaa la arkay odagii dhaawacuu noqday dhiig odaga dhaawacuu noqday muusan dhimanin odagii intuu soo gurguurtay fadhigii oo xabadaha lagu dhiftay ka soo gurguurtay soo u soo gurguuranay baa wuxuu gurguurad ku imaaday albaabka ganjeelka weyn oo laga baxo markuu meeshaas imaado uu dhaqaaqi waayay meeshii uu iskaga dhiig baxay si xunaan la'aan xabada u gaartay markaasoo meesha ku dhacay uuna dhintay odaga meeshaas ku dhintay meesha markuu ku dhintay maalintii labaad
baa waxa arkeen dad dhiig ka soo baxay meeshaan kusii xarkagooyo dhiigga dhulka ma gala ma ogtihiin si kasta hadduu maxaa la dhahaa qofka dhiiggiisa dhulka ma laqo koruu macnaha wuxuu ku noqdaa kii marka dadka waxay arkeen dhiiggan kasoo baxay ganjeelka hoostiisa oo meeshaan yaalo way yaabeen way fiiriyeen faamiligan cidna kama soo bixin odaga waa la isweydiiyey kabacdi waxay sameeyeen askartii waceen askartii markay waceen waxay dhaheen guri meeshana baa waxaan ku aragnay maxaanaha dhiiga meeshaan yaalo askartii u sharaxeen askartii imaaday gudaha lasoo galay odagii meydkiisa jidka lagu soo arkay albaabka horeeto gudahay usoo gudbeen maamadii ilmihii qofna inuusan faamiliga ka nooleen ee la arkay askartii way arkeen kabacdi dadka xaafadda way yaqaanaan maahino markay arkeen waxay dhaheen qof baa ka maqan faamiligan oo dadkan dhintay aan ka mid ahayn ilmaha qof aa maqan wiilkaasaa maqan wiilkii lambarkiisa yaa la reeshaashay waa la wacay waxaa la dhahay wax ma ogid miya adiga maya waxaa la dhahay faamiligaaga way wada dhinteen waa la dilo ma la diloo dhahay wiilkii wuu ooyay meeshaan wuxuu jiray inuu madluun yahay camal oo faamiligiisa oo dhan dhinteen askartii u tagtay waxay dhaheen adi maxaa dhacay ma ogid miya faamiligaaga inuu dhintay qofse kuma soo wicin miya mayuu dhaa qofna ima soo wicin aniga shaqadaanan joogaa mana ka degtuu dhaa shaqada oo shaqada len joogaa 24 hourka intaa iska joogaa dhaa habeenkiina wuxuu dhaa intaan seexdaa marka maba taguu dhahay guriga ma tagiinuu dhaha aniga guriga askartii marka intay midadkii wixii baabaarayeen warqadii uu ku qoray cabdiraxmaan faamiligiisa anaa dilay because asaga faamiligeenu dilay wuxuu cunug ninkan wuxuu dhexgeliyey cabdiraxmaan wuxuu hoostiis korkiisu saaray askarta warqadii arkeen warqadii raadiyeen soo waxay ogaadeen wiilka inuusan waxna qorin waxna aqrin way ogaadeen wiilka adi waa la soo qabtay waxaa la adan ka shaqsanaa baaritaan kugu sameeynaa waa la baabaaray waxaa la weydiiyey maxaa la dhahaa meeshuu ka shaqeynayay inuu xilligaas uu xaadir ahaa oo uu shaqada joogay wixii dhan la ogaaday almuhiim waa la iska soo fasaxay si meedadkii waxaas loo aaso meedadkii wax ka aasay meesha loo tacsiyadeeyay kabacdi haddana loo wacay taxqiiqa lagu bilaabaa marka in micnaha si fiican loo baaro taxqiiqa intuu socday waxaa la dhahay haye adiga waxaa la dhahay qorigiisa marka waxaa la dhahay qorigan waa la garan marka waxaa la dhahay adiga meeshaa ka shaqeysaa waadee tahaa shirkadda aad la shaqeysid qori may ku siisaa la saas markii la dhahay wuu isku naxay dareena soo galay because in lasoo qabanayo og yahay haye waaye markaas wuxuu dhahay haa aniga shirkadda qoriga isiisay shirkadda ma qoriga ku siisaa la haa shirkadii la tagay qoriga la soo qaaday waa la baaray maashaba qoriga rasaasta faamiligan loo isticmaalo lagu dilay waa isla qoriga ninkan uu haysto exactly qorigan waa ninkan uu haysto askartii waxay dhaheen haye waxba ha jejeysanin hanana dhibin hana isdhibin waxaa la dhahay qira dambigan adaan haynaa qorigaaga baa lagu dilay faamiligan qiraa la dhaha adiga adigu wuxuu meereysto markii dambe wuxuu dhahay haa anaa diluu dhaha faamiligayga hay maxaa ku dishaa la dhaha waxaa ku diluu dhahay way idhibeen saana ila dhaqmeen way caayaan way idileen anna waxaan ku casuura ayaga dhanba inaa ka taqaluso waxaa la haddaa adi aabbaha dhibaato ka tabanaysaa la way aa ilmaha walaalaha u dishaa la way aa hooyada u dishaa la wuxuu dhahay aniga haddaa aabbahay diluu dhahay walaalahay ay sheegayo dhahay haddaa inta wuxuu dhahay aabbahay intuu maqan yahay inta usoo galo walaalahay iyo aan diluu dhahay oo hooyo iyo iska daayo dhahay hooyo iyo kuwii meesha faasta kuwii aan dilay bis haddaan dili lahay dhahay kuwa kale way arkeen way dilayaan dhahay mut yartaa xataa amadeen kar way sheegi laheed dhahay saasaa marka waxaan go'aansaday dhahay kulligoodba inaan ka wada takhaluso sidaasuuna sameeyey cabdiqaadir kulligood waa uu wada dilay si aan marka wuxuu dhahay keliya faamiligii oo dhan wuxuu u laayay oo kulligood isku xabaal wadareed oo ugu sameeyey inay macnaha dhahay way idhibi jireen oo way idili jireen way igu qeylin jireen inuu ka tago shaqo uba helayno intuu ka tago iska shaqaystaa loo qaata asoo nafsadiisa uu aqoonsan hooyadiisa iyo aabihiisa baaba ka naxaba ana inta kale oo dhan waa walaalihiisa laakiin hooyadiisa iyo aabihiis nin dila wuxuu u naxaaya ma lahan saasaa marka lagu ogaaday laakiin nihaayada xukunkiisa iyo waxaas midna qisada laguma soo darin intaasaa kusoo gabagabeynaa fiidiyeena maanta haddaa ka heshana fiidiya like iyo saar maalmahan fiideo maana soo dhigin laakiin insha allah waa soo daba dhigi doonaa waxaan idinka codsanaa inaad subscribe iyo startiin channelka waana ku mahadsantihiin daawashada fiidiyoyaasheeda